waxaana wanaagsan daawada ku soo dhawow qaybtii xigtaa ee taxanaheennii inoo socdaa ee kun habeen iyo habeen alfa leyl waleyl. waxaa tarjuma cabdiraxmaan anteeno anigoo maracadda ayaa kula socodsiinaya. sheekada qaybtii hore waxay inoo maraysay markii xamaaligii gabdhihii uu ku yidhi aan idinla joogo waxaan ahay nin ceebka saliina oo ceebaha qariya idinna difaaci doona, sidoo kalena waxaad u baahantihiin ayaan idiin qaban doonaa. isagoo halkaasina ku tiriya tix yaro oo gabaya oo uu kaga hadlaya siduu ugu fiican yahay sirhaynta. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa markii gabdhihii ay maqleen hadalkii xamaaliga iyo tixdii gabayga ahayd iyo qaabkii uu u qanciyay wiilka ayaa waxay ka ogolaadeen inuu la joogo, laakiin hal shardi ayay ku xidheen, taasi oo ay ahayd hana weydiinin wax aanana qusaynin, waayo waxaad la kulmi doontaa waxaanan ku raaligelinin. wiilkii wuu ogolaaday hadalkoodii. markaas ayay gabadhii koowaad istaagtay, wiilkana gacanta soo qabatay, waana ay waday iyada oo ay geysay musqusha. kadibna waxay ku amartay inuu qubaysto oo uu isnadiifiyo, waxaana ay siisay wax kasta uu u baahnaa. kadib markii uu soo qubaystay ayuu gabdhihii u yimid iyada oo qadadii ay diyaariyeen. markaas ayay si wadajira u qadeeyeen. markii la qadeeyena midii saddexaad ayaa soo qabatay dhalo qamri ahaa oo meesha taallay, waxaana gabdhihii kale mid kasta ay u shubtay koob, sidoo kalena wiilkii ayay u shubtay. markii ay cabeen oo qamrigii ay gebi ahaanba caqligoodii uu gaaray ayay sarqaameen gabdhihii. wiilkii ayay u soo dhowaadeen, isagana wuxuu isku maleeyaa in uu riyoonayo, wuxuuna aamini la-yahay inuu gurigaani qasriga ah saddexdaani gabdhood ee sidaan u quruxda badan keligiisuu la joogo. markaas ayay halkaasi dhunkasho ay ka bilaabatay. waxyar kadibna waxaa istaagay gabadhii weyneed, waxaanay iska wada siibtay dharkii ay gashaneed iyada oo barkad lagu dabaasho oo meesha ku taalla gashay. markaasi kadib ayaa xoogaa inta ay biyihii kusoo dabaalatay waxa ay dib ugu soo qaaday afkeedii biyo kale, iyada oo ku shubtay wiilkii meesha fadhiyey oo la ciyaaraya gabdhihii kale oo aad moodo inay ka maseyrsan tahay. kadibna sheeko kooban ayaa dhex martay wiilkii iyada oo su-aalo badan weydiisa maadaama ay qabcabsanayd. kadib ayaa tii labaad intay dharkii iska siibtay iyana biyihii ee gashay. markii ay ku qubaysatay ayaa waxay ka soo baxday iyada oo qaawan. kadibna sidoo kale dhabtii xamaaliga ayay ku fadhiisatay. kadibna wiilkii xamaaliga ahaa ayaa inta markiisii uu baxay barkadii kusoo dabaashay. habeenkii tobnaad maxaa dhacay? sidii maalintii oo dhan ee halkaasi u joogeen iyaga oo wada cabsan ayaa iyaga oo faraxsan meeshiina wada fadhiya ayaa albaabkii lasoo garaacay. markaas ayay gabdhihii isfiiriyeen. qof saacaani albaabka soo garaacay ayuu yahay ayaa la isweydiiyey. kadibna midood ayaa kacday si ay albaabka usoo fiiriso oo lasoo garaacay. markaas ayaa mid ka mid a gabdhihii ay soo kacday, kadibna ay soo noqotay oo waxay ku tiri iridda waxa taagan waa 3 nin oo cajam sacluug ah. sacluug waa erey carabi ah, wuxuuna micnihiisu u yahay qof faqiirnimo dhaafay, qofkaas oo aanan lahayn meel ehel iyo meel uu u hoydaba. waxaana sidoo kale la sheegay inay madaxyada ay xiirnaayeen, isha bidixna ay wada la-san yihiin dhammaantood oo ay ka bukaan ama ilbuun ay yihiin. waana dad qariib ah oo wadanka ku cusub, waxaana ay ka yimaadeen dhulkii Roomaanka. mid kasta oo iyaga ka mid ahna muuqaalkiisa haddii la arko waa lagu qoslayaa, waxaana ay rabaan caawa in martisoor ay noo noqdaan ayay tiri gabadhii albaabka soo aragtay. markaas ayaa labadii kale waxay yidhaahdeen soo daaha soo galaane una sheeg shuruudda inaysanna weydiinin waxaanana qusaynin, haddii kale ay maqli doonaan wax aysan jeclaysan. sidii ayaa nimankii kale ee faqiirada ahaa ay ku soo galeen guriga. markii ay soo galeen waxay arkeen xamaaligii oo meesha fadhiya, sidoo kalena sarqaansan. markii hore waxay moodeen mas-uulka meesha, laakiin gadaal ayay ka ogaadeen oo waxay yidhaahdeen ileen waa faqiir annaga oo kale ah. markaas ayuu xamaaligii inta madaxii kor u soo qaaday nimankii waxa uu ku yidhi warjecli la-aan iska daayay fariisa, mise waad ilowdeen shuruudihii aad halkan ku joogteen? ha ka hadlaynana waxaanan idin qusaynin, waxaad maqli doontaan, haddii kale waxaadan raalli ka ahayn. markaas ayay gabdhihii qosleen. kadibna cabbaar ayaa la joogay oo la wada sheekaystay. xamaaligiina nimankii faqiiriinta ah wuxuu ku yidhi haddii aad heesaha wax ka taqaanaan caawa wax noogu dhifta ama mid u noo qaada. markaas ayay bilaabeen in ay heesaan, halka gabdhihiina ay bilaabeen inay ciyaaraan. habeenkaasi waxaa sidii caadada ahayd magaalada wareegaya amiirkii mu'miniinta Haaruun al-Rashiid iyo wasiirkiisii Jacfar iyo Masruur oo gacanyaro u ahaa. waxaa Haaruun al-Rashiid caado u ahayd in uu dad shacab ah uu iska soo dhigo magaaladana uu ku wareego si uu ula socdo magaaladaasi waxyaabaha ka socda iyo dhaqdhaqaaqeeda. kadibna waxa ay soo gaareen gurigii ay gabdhihii ay deganaayeen, waxaana ay maqleen shaqartii heesta iyo ciyaarta guriga ka soo baxaysay. markaas ayaa amiirkii mu'miniinta wuxuu ugu baaqay Jacfar si ay caawa gurigaani ay u galaan una ogaadaan waxa ka soconaya.
waxyar kadibna albaabkii ayay soo garaaceen oo guriga iyagoo iska dhigayay sida inay yihiin niman taajiriin ah oo gabalka uu goobta ugu dhacay. markaas ayaa albaabkii laga furay kadibna waxaa la sheegay in ay soo galeen gudaha iyada oo sharuud looga dhigay inaysan hadlin oo aysan ka hadlin waxaana qusaynin, haddii kalena ay maqli doonaan wax aysan raalli ka ahayn. sidii ayay gurigii ay ku soo galeen kadibna gabdhihii ayaa waxaa la sheegay inay u adeegeen oo waxa ay siiyeen waxay u baahnaayeen. markaas ayaa haaruun al rashiid waxa uu maqlay nimankii faqiiriinta ahaa iyo quruxda uu gabdhaha goobtaasi ugu yimid oo alle uu siiyey isaga oo la yaabay. kadibna waxaa loo keenay koob khamri ah balse wuu ka cudur daartay oo ma uusan cabin. markaas ayay gabadhii ugu yarayd waxaa la sheegay in ay u soo hagaajisay cabitaan si qaas ay ugu samaysay maadaama uusan khamriga uusan cabin, waana uu mahad celiyey. cabaar markii la jooga ayay gabadhii weyneed ee koowaad ee istaagtay waxaanay xamaaligii ay ku tiri kaala i caawi. markaas ayaa wuxa uu yidhi maxaan kuu qabtaa. markaas ayaa qol meesha ku yaalay oo maanta dhan uu xirnaa u furtay. markaas ayuu xamaaligii u arkay 2 ey oo aad u waaweyn oo qolka ku jira, doofaarna aad u malayso siday u weeyihiin awgeed. markaas ayaa waxa ay ku tiri ii qabo. kadibna wuu u qabtay una soo qaaday isagoo u keenay hoolkii guriga. markaas ayay gabadhii labaad ay soo istaagtay oo eygii madaxa ay ka qabatay, halka tii saddexaadna inta ay ul u soo qaadatay eygii ay garaacday, weliba si daran ayay u garaacday iyada oo eygeeda uu u qaylinayo. markaas ayay haddana inta ay qabatay laabta ay gelisay, ilintana ay ka tirtay, madaxiina ay ka dhunkatay. kadibna xamaaligii waxay ku tiri orod oo eygaani qaad, meeshiisii ku celiya oo kan kalena ii keen. markaas ayuu iimaankii haaruun al rashiid arrintaasi aad uga xanaaqay ama uga xumaaday, wuxuuna ugu baaqay jacfar aan ka qabanno oo aan weydiinno maxay tahay sababta ay sidaan u samaynayso. markaas ayuu jacfar wuxuu yidhi amiirulmu'miniin oo yaanan iloobin inay sharuud ay nagu xireen marka aan sugno xoogaa. kadib ayay gabadhii saddexaad istaagtay, inta ay sariirtii qurxanayd ku fariisatay ayay labadii kale ku tiri waxaad haysaan soo daaya. tii koowaad sariirtii ayay la fuushay oo madaxiina ay qabatay, halka tii labaadna ay tixdaani gabayga ah ay u tirisay u soo celiya madaxayga hurdadii laga qaaday, una sheega caqligayga halkuu aaday. waxaan ogaaday markaan raalli ku noqday jacaylka gurigiisa in hurdo uu seexda madaxayga laga saaray. waxay dhaheen waxaan kaa ballan qaadnay inaad reer rashaad noqotid ee maxaa ku xadgudbiyey. waxaan ku idhi dhiiggayga la daadiye marmarsiiyo ma lahan. waxaan idin leeyahay si kas ah ayaa loo daadiyey. qofkuusa alla siiya biyaha nolosha inta noloshiisa ka dhiman wuxuu ku qaataa hoostiisa. maxaadse ka aragtaa jacaylka waxaan kuu sheegay marka laga reebo cabasho, murug iyo baroor. waxaan sarqaamay waqti mase joogtaynin, hurdadii way iga janjeertay janjeersi. markaas ayay dharkii iska jeexday, dhulkana ay ku dhacday iyada oo suuxday. kadibna khaliifkii ayaa arkay jirkeedii uu ka muuqda garaac iyo raad ul ah, markaasna aad ayuu ula yaabay. kadibna waxaa kacday midii labaad oo biyo ku shubtay gabadhii suuxsanayd, kadibna dhar ayay u keentay una gelisay. kadibna gabadhii xigta ayaa kacday iyada oo sidii oo kaleentana tix gabaya tiri. waxayse ay tiri haddii aan wax walbo rabno aan ka dacwoonno maxaad ka leedahay, ama u dhimo jacayl maxaa noo wada ah, ama aan sabarno inkastoo joogis jirin. kadib markii aan weyna dadkaan jecleen in yar mooyee, waxaan murug iyo walbahaar ka ahayn ma ahee, iyo ilin ku hoobataa dhabanadeenna. dadka ka maqanow aragga ishayda, kana maqan dareenka qalbigayga. agtayda waqti iyo saacad midna kama socdee, mise waxaad ilowdeen kala fogaanshaheenna. haddiise qiyaamona la soo saaro waxaan rajaynay in xisaabteenna aysan dheeraanin. markaas ayay iyadana sidii hore oo kale dharkii iska jeexday, dhulkana ay ku dhacday. misena iyadana jirkeedii waxaa ka muuqda raad ul hore ahayd. markaas ayaa inta biyo lagu shubay dharkiina loo geliyey oo waxaa istaagtay tii saddexaad. iyadana waxay tiri ilaa goormee ayuu xanuunkaani iyo isjafaalinta soconi. xaqiiqda qalbigayga wuxuu ooye kuma safilneyne, maxaad maqnaanshiyahaaga si kas ah igu dheeraysay. haddii dantaada ay tahay xaasidnimo waxba kuuma qaba alla maxaad ballan qaaday iigana baxday. muslimow digniintana ka qaata waa qaa'ine kun dhaar iyo kun been isdaba dhige, ma sharciga jacaylkaa u banneeyey inuu iduleeyo.
markaas ayay iidana dharkii intay iska jeexday dhulkii ay ku dhacday, kadibna raadkii usha jirkeeda ayaa kasoo muuqday. Intaasi oo waxa ay dhacayeen khaliif Haaruun al Rashiid iyo dhammaan nimankii kale way daawanayeen, mana ay weydiin karaan sida ay wax u jiraan iyo waxyaabaha la midka maadaama shardiga uu ka mid ahaa. Markaas ayay faqiiriintii waxay yidhaahdeen maxaana soo geliya gurigan, waaba yaab, qaab aan hadda u seexana ma naqaan, indhahana lagama laaban kara waxa socda ee. Markaas ayuu khaliifkii wuxa uu ku yidhi oo idinka gurigan miyaadan deganayn? Markaas ayay ku yidhaahdeen maya, oo caawa ayaa noogu horreysa, waxaana aan ugu nimid ninkani xamaaliga ah. Markaas ayaa xamaaligii waxa uu yidhi aniga xitaa caawa ayaa iigu horreysa. Markii ay is yidhaahdeen aan weydiino waxa annaga oo 7 nin ah iyaga oo 3 gabdhood ah keliya halkaani nagu kulmiyeyna, iyaga oo ka baqanaya ballantii taale ayaa haddana waxay yidhaahdeen arrintu waa qasab inaan arrintan aan wax ka ogaanaa iyo guriga wax ka socda. Markaas ayuu Jacfar mar kale wuxuu yidhi aniga ra'yiyan ilama habboona, gabdhahaani sharuud ayay nagu xireen, wayna soo dhaweysteen, marka inaan sharuudda uga baxno ma ahan, waagana inuu baryaa wax saacad ka badan kama aysan harin. Marka sidaas uu leeyahay wuxuu u baaqayaa khaliifkii muslimiinta, waxaanu hoos ugu sheegay ha iska waalin, subaxii wax yar ayaa ka dhiman, dadkaana biri hortaada ayay wada imaan doonaan. Markaasna waa uu diiday arrintii loo soo jeediyey oo waxa uu yidhi ima aysan harin wax dulqaad ah, daqiiqadna ma sugayo oo waan weydiinayaa. Markaas ayaa haddana waxaa la isiiriyaa weydiinayo. Markaas ayaa waxay yidhaahdeen xamaaliga ilaan isaga ayaa guriga nooga soo horreeyey oo meeshii isaga oo jooga ayaan ugu nimide. Xamaaligii ayaa markaasi waxa uu yidhi allah ayaan idinku dhaariyey, waa maxay xaalka eeyahan aad garaacaysaan kadibna aad dhunkanaysaan iyo garaaca jirkiina ka muuqda iyo waxa gurigani ka socda. Markaas ayaa gabdhihii waxa ay yidhaahdeen idinka maxaad leedihiin, xamaaliga waaba na weydiiye ee. Markaas ayay dhammaantood waxay yidhaahdeen marka laga reebo Jacfar waxaan la qabnaa ra'yiga ee noo sheega. Gabdhihii hadalkoodii inta ay maqleen ayaa waxay yidhaahdeen waadna dhibteen, sharuud ayaan idinku xirnay ee ma waxa idinkaga dartay martisoorka aan idiin samaynay iyo inaan gurigan aan idin soo gelinay, cuntadeennii aan idin siinay, dembigiina idinka ma ahan ee waa qofka idin soo dhaweystay. Markaas ayaa intay xanaaqeen lugihii dhulka ay ku garaaceen 3 jeer, misana waxaa furmay albaab dhulka hoostiisa ku yaala, waxaana ka soo baxay 7 nin oo adoomo ah aadna u xoog badan, waxaana ay wateen seefo af leh. Markii ay gabdhihii ay xanaaqeen 3 jeerna lugihii ay ku garaaceen, albaabkiina uu furmay oo kuwaasi ay soo baxeen, ayaa gabdhihii waxay ku amreen adoomadooda inay nimankaani ay xidhaan kadibna ay kurka ka gooyaan. Habeenkii 11aad maxaa dhacay? Markaas ayaa gabdhihii waxay yidhaahdeen u kaadiya oo siiya muddo 1 saaca, mid kastaana sababta halkaani keentay iyo qisadiisa ha la weydiiyo, kadibna kurka ha laga gooyo. Xamaaliga ayaa wuxuu yidhi waan idin baryayaa ee aniga ha la i cafiyo, dilkaani nolol macaan oo aanan dhib lahayn ayaan ku jirnay ka hor inta aysan fuqaradaani iyo taajiriintaani aysan noo imaanin. Markaas ayaa gabdhihii intay ay ku qosleen maadaama uu si qosol badani hadalkiisii isugu duway iskuna difaacay, ayaa haddana mid kasta qisadiisii ha noo sheega ayay yidhaahdeen gabdhihii. Waxaa istaagay xamaaligii oo wuxuu yidhi aniga qisadayda waa la wada yaqaanaa, waxaan iska ahay xamaali basiid ah, ilaa aan idinkaga imaadayna wax kale oo aan ahaana ma aysan jirin. Markaas ayay ku yidhaahdeen waa fasaxantahay halkaani isaga tag, mar kalena ayaan lagu arkin. Markaas ayuu ku yidhi maya, wallaahi baanan baxaynin aniga oo aanan maqlin sheekada nimankaani kale. Halkii ayuuna fariistay. Kadibna waxaa la soo qabtay faqiiriintii midkoodii koowaad, waxaa la weydiiyey maxay tahay sheekadaada iyo sababta halkaani aad u timid, ishaani ebirka ka ah miyaad ku dhalatay iyo waxyaabo kale. Markaas ayaa wuxuu yidhi aniga ilbuunnimadan kuma aanan dhalan, sidaana ma aanan ahayn, waxaana i qabsatay sheeko qariib ah oo haddii aan ku qoro xitaa cirbad ay cibro qaadasho u noqonaysa qof kasta oo cibro qaadanaya. Sheekada faqiirkii koowaad ee cibro qaadashada ayaa wuxuu ku bilaabay hadalkiisa aniga waxaan ahaan jiray wiil uu boqor u dhalay, waxaana jira nin adeerkay ah oo ahaa isna boqor kale oo magaalo kala xukumayay. Aniga adeerkay inaan u tago oo aan soo booqdo wiilkiisa oo aan ahaa in adeerkayna la soo ciyaaro aad ayaan u jeclaan jiray, inta badanna waan booqan jiray waana u tagi jiray. Maalintii dambe ayaa adeerkay aan booqday wuuna i soo dhaweeyay isaga oo ii sharfay, kadibna waxaa dhacday
oo waxaa ii yimid ina adeerkay waxaana uu igu yidhi ina adeerow hal arrin ayaan kaa codsanayaa ee ma ii samaynaysaa. Markaasi ayaan ku idhi haa, waa ballanqaadaya inaan kuu sameeyo wixii aan awoodo. Markaas ayaa intuu ii wado wuxuu igeeya meel qabuuro agtayda ahayd, wuxuuna igu yidhi halkan igu sug, waan soo noqonayaaye. Markii cabbaar uu maqnaa ayuu soo noqday isaga oo ay la socoto gabar xijaaban oo aanan la arkaynin. Kadibna god meesha ku yaalla ayuu qoday. Cabbaar markii uu qodayeyna waxaa godkii ka soo baxay albaab, wuxuuna uu geliyey gabadhii. Kadibna wuxuu igu yidhi walaalow, haddii aad in adeerkaan ahay waxaan kaa codsanayaa inaad godkaan markii aad albaabka aan xirto aad igu soo daboosho, kadibna aad igu duugto, qofna ha uu sheegin, waa codsi. Markaas ayaan ka ogolaaday, sidii ayaana u sameeyey. Kadibna waxaan kusoo laabtay qasrigii. Subaxii markii waagii uu baryay ayaan soo kacay aniga oo naxsan, waana ka murugooda inaan in adeerkii godkii aan ku xiray. Kadibna waxaa dhacday in aan soo baxo, waxaana aan imid godkii, laakiin meeshii waan garan waayey. Sidii aan u raadinaya ayuu gabalkii ugu dhacay. Kadibna waxaan u laabtay qasrigii anigoo ina adeerkay waxba aanan u sheegin. Subaxii dambe ayaan ku noqday boqortooyadii aabbahay aniga oo shalay daran dareemaya. Maxayse shalay ii taraysaa? Kadibna waxaa dhacday markii aan ku soo laabtay magaaladii aabbahay uu ka talinayay in magaaladii aan ugu imid jawi kale, iyada oo wax walba ay isku qasan yihiin. Kadib ayaan dadkii aan waraystay, waxaana la ii sheegay in aabbahay la dilay, boqortooyadana uu la wareegay wasiirkiisii. Iyada oo hadalkii la ii wado anigana aan naxsanahay kana xumahay dilka aabbahay loo geystay, ayaa waxaa meesha yimid ciidankii wasiirka. waa ay wadeen iyada oo la ii geeyay wasiirka oo xurguf hore ay naga dhexaysay. Waxayna ay ahayd aniga oo yar. maalin qasriga ah waxaa ku soo degatay shimbir, anigana waxaa gacantii iigu jiray fargan. Markaas ayaa shimbirtii dhagax aan ku tuuray, iyada oo fargankayga aan adeegsanaya. Nasiib xumana wasiirkii oo meesha marayay ayaa isha igu dhacday dhagaxii, halkaas ayuuna ishiisii ku waayay. ciilkaasi hore ayuu ii qabay wasiirka, sidaasi daraaddeedna maadaama aan markaasi aan ahaa wiil boqor, igama uusan aarsan karin, laakiin hadda gacantiisa ayaan ku jiraa. Markii la ii geeyay ayaa askartiisii waxuu amar uu ku siiyey marka horeyso horta in isha la iga rido. Sidaas ayaan ishaygidii ku waayay. Kadibna mid ka mid a askartiisii ayaa amar la siiyey oo waxaa lagu yidhi wad ninkaani oo meel hebla geey, kadibna inta aad disha meydkiisa badda ku tuur. Sidii ayuuna ii soo waday askarigii oo aanan aqoon aanan u lahayn. Markaas ayuu meeshii i keenay, waxaana aan ka tuugay inuusan i dilin, aniga oo soo xasuusiyey markaasi oo waxaan ku idhi aniga gabadhaada waxba kama ogi, laakiin wiilkaada waxaa dhacday sidaas iyo sidaas ayaan ugu warramay wax walba iyo sidii ay u dhaceen. Markaas ayuu farxay, igana codsaday inuu igeeyo goobtii. Kadibna markii aan geeyo oo godkii uu soo faagay meeshii ilaa markii dambe albaabkii aan ka aragnay. Kadibna gudaha ayaan hore aan usii galnay, waxaana godkii aan ku arkanay raashiin, cunto, cabitaan, ilaa markii dambe aan u tagnay wiilkii iyo gabadhii oo sariir isla saaran laakiin isku bedelay dhuxul. Markaas ayuu odagii adeerkay ahaa wuxa uu yidhi naclad ha ku dhacdee, imisaan uga digayay walaashiisa. Wuxuuna ii sheegay in wiilkaasi uu ku fidnoobay walaashiis, islamarkaana laga kari waayo, laakiin markii dambe waan kala qariye ayuu yidhi, balse si ay isku helaan ayay waxaani oo dhan ay u sameeyeen. Cadaabtii alle ayaana halkan ugu timid. Markaas ayaa wuxuu igu yidhi waan duugaynaa, wixii dhacna qofna ma ogeysiinayno, si ceebtaan aysan bannaanka u iman. Kadib markii magaaladii aan ku soo laabtay ayaan waxaan ka warhelay in wasiirkii magaalada adeerkay uu ku soo duulay, xoogna uu kula wareegay. Markii uu itaal roonaadayna ciidankii ilaalada ahaa ay goobtaasi gebi ahaan bay la wareegeen. Sidaasi daraaddeedna si aan aniga dhibaato aanan ugu soo jiidin maskiinkii i badbaadiyey ayaa timihii aan isaga soo xiiray, magaaladiina aan ka soo baxay. Habeenkii 12aad maxaa dhacay? Markii aan ogaaday in wasiirkii uu la wareegay magaaladii adeerkay ayaa si aanan loo aqoonsanin timihii aan iska soo xiray, dharkiina aan iska bedelay. Kadibna waxaan imid magaalada Baqdaad si aan amiirulmu'miniin Haaruun al-Rashiid aan ugu warramo. Anigoo jidkii aan socdana waxaan la kulmay nimankan kaleento. Markii aan iswaraysanay kadibna waxaa naga hor yimid faqiirkan kale, sidii ayuuna aan isku soo weheshanay saddexdeennii. Caaqirkii ilaa halkan aan nimid. Aniga waa taasaa sheekadayda, waxaan halkan aan u imaaday inuu wax ii qabto khaliifka. Markii uu amiirulmu'miniin hadalkaasi u maqlay aad ayuu ula yaabay, aadna ayuu u murugooday. Markaas ayay gabadhii waxay ku yidhaahdeen faqiirkii koowaad waad fasaxan tahay, waadna bixi kartaa. Markaas ayuu isna uu yidhi maya, wallaahi baanan bixinin ilaa aan maqlo sheekada nimankan kale. Halkii ayuuna fadhiistay, waxaana kadib la soo kiciyey faqiirkii labaad. halkaa haynoo joogto qaybta xigtaa ee sheekada kun habeen iyo habeen alfa leyl waleyl. qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.